مدنياش baarlamaanka labaanada waa salaam markoo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asbiyeysan waxa ya salaam kadib waxaan rabaa maanta sida dadkii igu horeeyay u sheegeen labaanadii igu horeeyay maanta waa maalin weyn waa maanta maalin taariikhi maanta waxay geli doontaa taariikh xildhibaankii ogolaado inay magaaladani tahay magaalada uma Soomaaliyeed leedahay dad gaar ah degan yihiin in la iska wada arkanay sax tahay u codeeya in dadka shacabka 3 milyan ee Soomaaliyeed ka kooban inay helaan xuquuqdooda u codeeyaan waa in la arkaa kan diidanna waa in la arkaa shacabka Muqdisho ee arkaan shacabka magaalada ku nool waa in arkaa هذا الكيدي أنا أسكره هذا الكارا أسكره هذا الكارا أسكره هذا الكارا أسكره أنا وقتي أنا أسكره مع سنتها هذا القدوم مع سنتها وحالي شيء ويا مدن القدوم مع سنتها أنا كواحد شيء وافكر كي وأنا حقيقي شعب كمجال المقدسة واحد ليا ذاتك أنا مثلا واحد ليا وحي قبعنا أنا واحد ليا أم بالله رحمه الله أم بالله فرحه وعن كان الله وأنتاس ما مو يناس ليسمه وهذا احترام على احترامه أنت أكذب وعوصل لغنا مدرات قبل كبنادر مدرات قبل كبنادر وعمد متقنا حق لي أنت كان مجال المقدسة دجال tirada la rabana waxay tahay in laga badiyo muddo tirada waxa u baahanaa in 14 laga dhigo oo mataqaana ugu yaraan waxa lagu sareey doonaa bulshada degan magaalada Muqdisho tiradooda inta ay laagta waxa kale oo sakan gareena xildhibaanada salaad xildhibaanada iga horeeyay inaysan u baahnayn in dastuurka loo furo saacadan madalaadaasna shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa baarlamaanka golaha shacabku matala in maqaamkan gobolka Banaadir amba matalaadan gobolka Banaadir aqalka sare inay noqoto mid la wada ansixiyo aan loo kala kicin ilaa caawa lagu qaadato hadii la rabo laga doodo go'aanna laga gaaro taas mataqaana waa mid aan soo jeedinayo aan mataqaana codkaygana aan ku biirinayo haddii hadalkayga si qalad loo fahmay waxaan ka bixinayaa laakiin aniga waxaan ku taaganahay shacabka Soomaaliyeed waana sugayaan shacabka gobolka Banaadir waana sugayaan mana aqbali meeno doorashada dalkan kala inay ka dhacdana aqbali meeno ayadoona xaq gobolka Banaadir leeyahay waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.